السلام عليكم. محمد بن موسى الخواريزم وشخص سميه حسابته الجبرها. الخواريزم magaciisu waa maxamed ibnu muusa al-khawaarizm waa aabbaha keenay xisaabta lagu magacaabo aljabra taasoo ah xudunta xisaabaadka adduunka waana xisaabo badan loo adeegsado xaraf iyo nambaro waana shakhsigii soo saaray xisaabta aljabraha waxa uu qoray al-khawaarizm buugga magaciisu yahay kitaab al-mukhtasar fi xisaabaat aljabr wal-muqaabala buuggan oo ah buug adduun caanka ah kaasoo ka hadlay xisaabta loo yaqaano aljabra buuggani waxaa loo tarjumay luuqadda laatiinka qarniga 12aad waxa uu ahaa qofkii kala saaray cilmiga xisaabta iyo cilmiga aljabra waxa uu buuggiisa ku soo bandhigay xisaab ku qornayd tirooyinka hindida iyo carabiga sidoo kale waxa uu ahaa qofkii xisaabta aljabraha u sameeyey si cilmi iyo caqli ku dheehan al-khawaarizm waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay culimmada ugu cilmiga badnaa iyo kuwa ugu caansanaa markaasi waa qofkii aasaasay aljabra maanta aan adeegsano waxa uu ka mid yahay dadka looga dambeeyo cilmiga xidigaha isaga oo ka hadlay meerayaasha iyo sida ay ugu wareegsadaan iyo culum kale oo kala duwan waxay sheegaan waddamada reer galbeedka haddii uusan keeni lahayn al-khawaarizm ma aysan horumari lahayn teknolojiyadda kombiyuutar ma jiri lahayn internet haba sheegin sidoo kale waxaa adkaan lahayd qalabyada mashiinka iyo qalabyada loo isticmaalo caafimaadka gaar ahaan qaliimada casriga saynisyahanadu waxay ku naanaystaan aabbaha cilmiga kombiyuutarka taasoo loo sababeeyo inuu buuggiisa kaga hadlay cutubyo muhiim ah al-khawaarizm waxa uu xal u helay xisaabta lagu magacaabo qudratic equation taasoo micnaha Soomaaliga noqonayso saablayda isleeg al-khawaarizm waxa uu daraaseeyay cilmiga xisaabta falaga juqraafiga taariikhda sidoo kale ogow waxa uu bartay cilmiga qadiimiga ee hindida iyo griiga al-khawaarizm waxa uu ku noolaa Baghdad waxa uu si gaar ah ugu shaqayn jiray daar lagu magacaabo daarul xikam daartani waxa asaasay khaliifkii al-maamuun al-khawaarizm halka ayuu mas'uul ka ahaa oo maamulkeeda loo dhiibay al-khawaarizm maktabadda loo dhiibay waxaa yaalay kutub aad u fara badan oo aan tir ahaan yareen kuwaasoo gaaraya nus milyan waxqabadkiisa al-khawaarizm waxa uu ku qoray luuqadda carabiga taasoo ahayd luuqadda cilmiga adduunka xilliga al-khawaarizm buuggiisa uu kaga hadlay xisaabta aljabraha taas oo waxqabadkeeda noqday sida cabirka dhulalka qaybinta dhaxalka kuwa ganacsatada lacag sariifada iyo waxyaabo badan oo kaalin muhiim ku leh dhanka xisaabta shaqooyinka kutubkiisa loo adeegsado dhanka aljabraha waxaa ka mid ah shaqooyin baraatikaal ah haddii aan luuqadda Soomaaliga kugu fasirna itus oo itaabsii ugu dambayn waa ninkii alifay xisaabta aljabraha magaciisuna waa maxamed ibnu muusa al-khawaarizm muuqaalkani halka ayuu ka egyahay intaynu ku kulmi doono kani muuqaalkiisaga fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh